kulankan madaxweynaha dowladda Puntland uu la yeeshay qurbo-joogta Puntland ee ku sugan caasimadda ayaa ku aadanaa isxog wareysi iyo sidii qurbo-joogtu uga qayb qaadan lahaayeen dib u dhiska Puntland iyo kaalintooda. kulankan ay isku xog wareysanayeen madaxweynaha iyo qurbo-joogtu wuxuu qaar ka mid ah qurbo-joogta Puntland ay madaxweynaha u sheegeen inay mar walba garab taagan yihiin dadkooda Soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadooda cusub ee Puntland oo uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani. qurbo-joogta madaxweyne waxa weeye dalka saddex qaybood ayay u yimaadaan dad waxa weeye dad u yimi families ugu soo laabta dad horadhay u yimaada iyo dad u yimaada inay dalka maal gashadaan saddex qaybood baana loo kala saaraa qurbo-joogta waxa weeye dad humanitarianka ka qayb qaata oo abaaru markay dhacaan dhibaatooyin markay dhacaan dalka contribution dibadiisa ka soo dira oo bixiya dad waxaa jira oo political sectorska ku jira oo siyaasadda ku jira dadka sectorka kale waxa weeye dad ka qaata horumarinta iyo dhaqaalaha dalka oo business iyo dhismo iyo korinta waddanka ka qayb qaata. qurbo-joogtu waa dad soo shaqeeyey oo inta badan waa la ogyahay markii la qaxay dadkii ku hayay daljoog ku hayay dalka inay ayagu ahaayeen oo biili jireen waa la ogyahay sumcaddaasay leeyihiin waxaa lagu casuuminaya waa sumcaddaas sanayaa qurbo-joogta dad wax bartay weeye oo aqoon leh in ay ka shaqeeyaan dalka teeda kale inaan la oran xafiis haddaanan aynan gelin ma shaqaynayno inaan la oran baa la rabaaye shaqada way badan tahay in la shaqaysto nin walba uu shaqaysto ee gabar walba la rabaa rajaynayaa madaxweynaha inaan garab siinaa loo baahan yahay annagoo shacab ah golihiisa wasiirada la shaqeeyaan baarlamaanku la shaqeeyo dad isku duuban aan noqono oo mid ah ani reer Canada aan ahay wadankii waxaan joogay 3 bilood laakiin alxamdulillah go'aan waxaa gaaray inaan meeshii Canada u laabmo rabaa inaan sheego inta qurbo-joogta oo sideedoo kale u soo tafaxeedatay inay waddanka wax ka dhisaan oo degaan horta waa mahadsan yihiin waddanka waa waddankiina maxaa la dhahaa wax idinkaga mahad celinayo oo weyn ma jirto dalkiina baa dhisateen waxaan rabaa inaan u sheego inta kaloo timi waa u jeedaan anagu markaa imanayay meeshan waxaan oo facilities ah iyo hoolka aad ku jirtaan iyo hoteelada aragteen intaba ma jirin oo waxaan ka bilownay meel scratch oo dhulka hoose ah laamigaa keliya jira magaalada airport ma jirin waxaa airport noo ahaa berbera inaan transit ku ahaano oo boosaaso oo maaragtay diyaarad yar kaga soo degi jiro. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo khudbad ka jeediyay kulanka jaaliyadda Puntland uu la yeeshay ayuu ku dheeraaday madaxweynuhu doorka qurbo-joogta Puntland waxa uu madaxweynuhu xusay inay muhiim tahay in dalka laga sameeyo maalgashi ganacsi si loo kordhiyo fursado shaqo iyo abuuridda fikrado wax soo saar. runtii dadku taariikh badan ma hayaan dadka dibadaha ku soo dhaqnaa dalkan wax badan bay tareen laba midaal baan u soo qaadanayaayo burburkii kadib waxyaabihii bilowday waxyaabaha ugu waaweyn hadda waxaa ka mid ah dhalooyinka biyaha agtiina hortiina yaalla warshadii ugu horreysay biyo macaanaysa nin dibadda ka yimid baa horta Puntland ka sameeyey waxaan kaloo xusayaa caano geel oo fresh hadda loo cabaa ninkii ugu horreeyey oo caano geel in laga shaqeeyo production laga soo saaran isla qurbuu geeyey marka horta dadka qurbaha ka yimid dalkan wax walbay ku soo kordhiyeen dadkuna inay moogeen maaha marka runtii aad bay u tahay sidoo dhaqaale badanaa dibadaha lagu haystaa dalkaanna in la rabo in loo shaqeeyo waxa ugu weyn oo base waa dhaqaale in la abuuro marka kow waxaan u baahannahay habkii dhaqaalaha uga qayb qaadan lahaydeen aan uga faa'iidaysanaya kulankan inuu muhiim noqdo oo laga guuro in lagu tartamayo maaragtay jagooyinka siyaasiga ah waxaan u baahannahay isla xisaabtanku inuu saa ka duwanaado runtii hadal fiican oo aad u badan oo aan ku farxado halka dhacay dhalinyaro yaryar oo aad ugu faraxsan dhulkooda inay entrepreneur noqdaan oo maalgelin geliyaan oo ka shaqaystaan waa fikrad aan aad u soo dhaweynayna gacanna siinayno dadkii dibadda ku haray ay organizationskooda siday u abaabulan yihiin aad qayb ka qaataan waxtarkuna
waxaan rabnaa waxtar muuqda inuu noqdo oo aan ahayn xilli abaar dhacday iyo keliya aysan noqone haba yaraadee waxaan rabnaa mashaariic si guud loo fuliyey ama ha ahaado mashruucaasi mid gaar loo leeyaho ganacsi ama ha ahaado mid community lagu caawinayo labadaba optionba way furan tahay marka waxaan qabaa inaad dadka aqoonta u leh fursadaha ganacsi ee dalka jira inay baaritaan badan sameeyaan kulankan oo ah kulankii ugu horreeyay madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani oo la yeeshay jaaliyadda reer Puntland ayaa noqon doona kulan sanadle ah oo sanadkiiba mar ay yeeshaan qaar ka mid ah jaaliyadda reer Puntland iyo madaxweynaha dowladda Puntland Jacfar Macal Maxamed Puntland TV Garow.